madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan gobolka Gabiley ayaa markii soo gaaray dalxiiseed Daarabsiyo waxa uu xadhiga ka jaray wada laamaya oo laga hirgeliyay gudaha magaalada sidoo kale madaxweyne Muuse waxa uu xadhiga ka jaray wada afarhaada oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Gabiley waxana mashaariicda xadhigaha laga jariyay ugu horeynba ka hadlay maayarka magaalada Gabiley Axmed Amiin Cumar Cabdi iyo barasaabka gobolka Gabiley waxayna hadaladoodii kamid ahaa mudane madaxweyne adiga iyo waftiga hogaaminayso waxaanu si sharaf iyo ku soo dhaweeyay gudaha gobolka Gabiley waxaanu jecel lahay inaad xadhiga nooga jarto sidii aad horeba uga soo jartay laba wado oo labaduba ay yihiin mashaariicii 2018 ay gobolka degmooyinkiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa ay ka hirgelisay dawladda hoose degmada Gabiley wada 1 kiiloomitir oo markii ugu horeysay taariikhda Arabsiya aan u sameeynay adiguna aad nasiib u heshay inaad noqoto madaxweynihii horeeyay ee Arabsiya degmada dalxiiseedka xadhiga uga jara iyo halkan aynu joogno oo ah wadadii labaad ee afarhaad ee magaalada Gabiley dhexdeeda aanu ka sameeyno iyadoo aanu ugu talagalnay inay kor u qaado bilicda iyo isu socodka magaalada ku soo dhawo mudane madaxweyne oo maanta runtii laba wado oo halbowlo ah degmada Arabsiyo iyo degmada Gabiley oo ah la dhigay roogii asfalka ahaa waa horumarka ay dawladda hoose ay nagala qayb qaadatay kamid tahay mashaariic kale oo fara badan oo ka socda gobolka iyagana waa jiraan oo runtii dawladda dhexe iyaduna ka hirgelinayso runtii waxaanu leenahay mudane madaxweyne noo baarig oo nooga jar xadhiga labada wadaba guuleed Ali Ibraahim Kacse Sab TV gobolka Gabiley